بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ودروستيني رمضان وحين إن شاء الله تعالى maantana qaadan doonaa fadlu siyaam, fadliga soonka. waxaynu isu xusuusinaynaa fadliga soonka si aynu soonka u jeclaanno oo aynu u badsanno oo aynu ugu dadaallo. acmaasha saalixaadka kuwa ugu fadliga badan ee ugu waaweyn ilaahay agtiisa waxaa ka mid a soonka. walidaalika ayaa sharcigeennu uu aada inoogu booriyey oo uu inoo jeclaysiiyey soonka. waxaanuu ka dhigay arkaanta waaweyn ee islaamka mid ka mid a. waxaa ilaahay inoo sheegay inaan ummadaha oo dhammi aanay ka maarmi karin, waayo akhlaaqdii ayuu hagaajinayaa, naftii buu daahirinayaa, sabirkii iyo ikhlaaskii ayuu barayaa, toosnaantii buu barayaa. marka ummadaha oo dhammi kama maarmaan sabirka. waxaa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. kuwa ilaahay rumeeyeyo waxaa la idinku faral yeelay soonka sidii ummadihii idinka horeeyeyba loogu faral yeelay, si ilaahay aa uga cabsataan. waxaa kaloo ilaahay yidhi: wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun. inaad soontaan ayaa idin wanaagsan haddii aad garanaysaan. nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslimba ay soo saareen min xadiidi abi saciid radia allaahu canhu, waxa uu ku yidhi: maa min cabdin yasuumu yowman fii sabiili illaah. ma jiro addoon sooma hal maalin fii sabiili illaahi weliba ku sooma, ilaa baacada allaahu bidalika alyowmi wajhahu can innaari 70 khariifa. hadduu jiro addoonkaasi, waxa ilaahay maalintaa uu soomay kaga fogeeyaa wejigiisa naarta 70 sannadood. maalin qura oo aada soontay fii sabiili illaahi aada ku soontay ayaa 70 sannadood wejigaagii naarta laga fogeynaya. maxaad u malaynaysaa bil dhan oo aada soontayna? fadaaisha soonku uu leeyahay waxaa ka mid a walaalayaal: kow, imtithaalu amri illaahi tacaala. waa fulin la fulinayo amarkii ilaahay, waayo soonka ilaahay baa ina amray. awaamirta ilaahay oo la fuliyaana waa cubuudiya, addoonnimo weeyaan. addoonnimaduna waa sharaf. darajo makhluuq gaadho darajada u sarraysaa waxa weeyaan inuu addoon ilaahay noqdo. walidaalika ilaahay kuma ammaanin rasuulka calayhi salaatu wasalaam darajo ka sharaf badan oo ka sarraysa addoonnimo. markuu addoonku fuliyo awaamirta ilaahay, nuur buu helayaa, qalbigiisii baa nuuraya, wejigiisii baa iftiimaya, arsaaqadaa loo ballaadhinayaa, khalqigaa jeclaanaya, awood buu helayaa, adduun iyo aakhiraba uu liibaanayaa. fadaaisha soonku uu leeyahay waxaa ka mid ah annahu wiqaayatun min cadaabi illaahi yowma alqiyaama. waxa uu addoonka ka ilaalinayaa oo uu ka badbaadinayaa maalinta qiyaame cadaabka. waxaa nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam: inama asiyaamu junna. soonku waa gaashaan yastajinnu biha alcabdu min annaar. addoonku wuu kaga gaashaamanayaa naarta. markaa soonka kolka aad ku dadaasho, naartaa ilaahay kaa ilaalinaya. waxaa kaloo soonku uu qofka ka ilaalinayaa saa'imka ah laqwigii iyo dhacdhicii iyo hadal xumadii iyo dembigii oo dhan. waxaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam: wasiyaamu junna. soonku waa gaashaan. faidaa kaana yowmu sawmi axadikum falaa yarfuth walaa yaskhab. haddii uu midkiin sooman yahay, maalintaa yaanu hadal xunna ku hadlin, qaylininna. markaa adabtii iyo dhaqankii wanaagsanaa iyo hadalkii wanaagsanaa oo dhan soonkaasaa ku baraya. fadaaisha soonku uu leeyahay waxaa kaloo ka mid a
أنه طريق عظيم إلى الجنة ولا يعدله شيء ووضو جندي كوغينيسا صونك وحلا مدينة مجرو حق أعماش صالحات كامرك اللي يقو صونك وحلا مدينة مجرو ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام حويمي صحابي أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وحكيري وحد فرطا رسولك إلهي وعمل جنة إيجالية وأرنوين عمل جنة إيجالية إفر وحرسولك كيري عليك بالصوم فإنه لا عدل له وحد كد ذا شاصونك وهي صونك وحلا مدي مجران haddana mar labaad baan u imi buuri saxaabigii su'aashii oo kale ayaan ka codsaday aan yiri waxaad amartaa amal jannada igeliya wuxuu igu yiri sidii oo kale calayka bi sawm waxaad ku dadaashaa soonka Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu isagoo ku dhaqmay xadiidka maalintii gurigiisa dab laguma shidi jirin ilaa inay martii u timaado mooyaane isagoo ka faa'iideysanaya fursadda oo soonka ku dadaalaya xadiid kale nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri inna fil jannati baaban yuqaalu lahu ar-rayyan jannada waxa ku yaala albaab sideed albaab bay jannadu leedahay albaabadeeda mid kamida ar-rayyan baa la yiraahdaa yadkhulu minhu as-saa'imuun yawm al-qiyaamah dadkii saa'imiinta ahaa baa ka galaya maalinta qiyaame لا يدخل منه أحد غيرهم روح عن يجاهيننا كجلي مايو وحلورنا يا مالين قيامة أين الصائمون ما يكوي صائمين تها كوي سومي شري مايا ويسوق عيان طبعاً الباب كاسي كجليان روح عن يجاهيننا كجلي مايو مركي كجلانا والله حريا الباب كا فلم يدخل منه أحد الباب كا جاركا ayaa dadkii saa'imiinta ahaa ay ka galayaan way adduunkii kolkay joogeen ayay soo soomeen dar ilaahay u soo gaajoodeen u soo haraadeen iska ilaaliyeen wax alla wixii soonka jabinayay wax alla wixii ilaahay uu diiday fadaa'isha soonku leeyahay waxa kale kamid ah anna siyaama yashfa'u li saahibihi yawm al-qiyaamah soonku uu shafaaca qaadaya qofkii saa'imka ahaa maalinta qiyaame نبينا عليه الصلاة والسلام وحيري الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صونك إيا قرآنك وويرجين يان أضونك مال انت قيامة صونك وحورنا يا إلهي أضونك عنتدي يا عبدانكي يا وحي نفتي سوى دوني سيوانو ديدي مال انتي فشفعني فيه إرجاد عنو صمين يا إلهي ويقى أقبل قرآنكينا وإرجينيا وحورانيا إلهي يوم منعته النوم بالليل فشفعني فيه وحندي دي سيح شدي هبينكي وسيحن لها إلهي وإرجدا عنو سماينيو إيجا أقبل لبضا با إلهي إرجدا وكا أقبليا أضون كانت شنادها لقلينيا وحديث صحيحة وصحيح الجامع الصغير ككويا الله فضائش صونك وليه وحكى الله كمذا أن الصائم يوفى أجره بغير حساب قفك صائم كأجر كيس وحلوه فينيا يسوغان حساب صنايم با إلهي ونبو حساب سنيهي لكن ثوابك قفك صائم كاهي ترقوا عن ملها لا يتقيد بعدد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهي صونك وصبر طاعدي إلهي بو كصبريا معصيدي بو كصبريا وحي إلهي وقدري حنون لا يو كصبريا أجر كيسو مركا ما حساب سنة حتى وحكا لداية كاربونك كصوبح يوقفك صايم كافكيسة أي إلهي أكتيسة كودقون أرطا مسكي أرطورنا نقودقون وحنبقى نقول عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم يضاعف ضمان عملك ابن آدم كو صمينيو ولو لابلابيا oo hadba niyadiisa ikhlaaskiisa sida wacan amalka uu qabanayo ayaa loogu laablaabayaa amalkii al hasanatu bi 10 amthaliha hasanadiiba 10 jeer baa loo laablaabayaa ila 700 dhif ila 700 oo jeer ilaahay wuxuu yiri illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bi
soomku ka soo reebo wuxuu yidhi soomka mooyaane soomka anaa iskale baa ilaahay yidhi anaana addoonkii ka abaalmarinaya waayo soomku waa sir u dhaxaysa ilaahay iyo addoonkiisa waayo qofkii saa'imka ahaa hadduu maalintii si qarsoodiya waxu cuno waxu cabo waxyaabihii muftiraadka ahaa uu sameeyo dee cidoogii ma jirto allah mooyaane isaga iyo allah ayuunbaa isla oguun dar ilaahay buu markaa qofkii saa'imka ahaa wixii soomka jabinaya oo dhan uga tegey markaa ikhlaas baa ka muuqanaya sidaa awgeed ayaa ilaahay yidhi ila sawma fa innahu lii soomka isaga anigaa leh anaana ka abaalmarinaya addoonka yadacu shahwatahu wa طacaamahu min ajli rabitaankii naftiisa iyo cuntadiisiiba aniga daraadday buu uga tegey baa ilaahay yidhi waxaa nebigu yidhi lisaa'imi farxataan qofka saa'imka ahi laba farxadood buu leeyahay laba jeer buu farxayaa sacaadata addunya waalaakhira ayuu helayaa farxatun cinda fitrihi mar wuxuu farxayaa marka uu afurayo oo wuxuu ku farxayaa camalka wanaagsan ee usoo dhammaystirmay wuxuu ku farxayaa waxyaabihii markii hore loo diidanaa oo u bannaan wuxuu ku farxayaa cibaadada qaaliga ah ee ilaahay uu waafajiyey waxaa kaloo uu farxayaa farxadda labaad cinda liqaa'i rabbihi kolka uu rabbigii la kulmo oo ajarkaa faraha badan ee aanu filahayn ee la siinayo ayuu ku farxayaa maalinta qiyaamana wala khuluufu fami saa'imi atyabu cinda allaahi min riixi lmiski kaarboonka ka soo baxaya qofka saa'imka afkiisa ilaahay agtiisa wuxuu ka udgoon yahay miskiga oo cadarrada ugu udgoon ayaa kaarboonkaasi uu ka udgoon yahay ilaahay agtiisa waxaa la yidhi dadka saa'imiinta maalinta qiyaame waxaa lagu garanayaa urta miskigoo ka soo kankamaysa urtaa miskiga afkooda ka soo baxaysa sida qofkii shahiidka ahaaba loogu garanayo dhiiggaa ee ka soo baxaya jidhkiisa ayaa saa'imkiina lagu garanayaa urtaa wanaagsan ee ka soo kankamaysa fadaa'isha soomka waxaa kaloo ka mid ah anna saa'ima yustajaabu ducaa'u qofka saa'imkaa ducadiisa waa la aqbalaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi halaaثu dacawaatin mustajaabaat saddex duco horaa laga aqbalaa dacwatu saa'im qofka saa'imkaa ducadiisa wa dacwatu lmadluum iyo qofkii la dulmiyey ee laga gardaraa ducadiisa wa dacwatu lmusaafir iyo qofka musaafirka ah ducadiisa waa xadiid saxiixa idan soonku wuxuu kaa dhigayaa mustajaaba dacwa qof ducadiisa la aqbalo waa inaad kolkaa ayuhalmuslim aad ku dadaashaa soonka si ducadaada ilaahay uu aqbalo fadaa'isha soonka waxaa kaloo ka mid a waa fadliga toddobaad anna siyaama ramadaana yukafiru alkhataaya wasayi'aat soonka ramadaanta waxaa lagu dhaafaa dembiyadii waxaa nebigeenu yihi calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi qofka sooma ramadaantii isagoo ilaahay rumaysan ajarna kaga doonaya dembigiisii horeo dhan ayaa la dhaafaa dembi dhaafkaana soonka waa lagu helaa walaalayaal way fara badan yihiin fadaa'isha soonku waxaa helaya fadaa'isha soonka qofka soonkii si qumaati oo wanaagsan ula yimaada aadaabtii soonka ee dhammaystira soonkiisa hagaajiya waxaa la doonayaa kolkaas soonkeenna inaynu hagaajinno wixii soonkeenna jebinaya iyo wixii ajarka inaga yaraynaya intaba aynu iska ilaalinno darsigeenna maanta halkaasuu inoogu joogayaa waxaynu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka baryaynaa khayr oo dhan inuu ina waafajiyo shar iyo dhibaato oo dhanna uu inaga badbaadiyo cudurrada iyo imtixaanadana ilaahay inaga salaamad yeelo allahuma baarik lana fii ramadaan ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم احفظ صيامنا واجعله شافعا لنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين